war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ururka midnimo ee musharaxiinta gobolada waqooyi ayaa waxa uu u dhignaa sida tan: ku madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, og ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble, og gudoomiyaha aqalka sare ee federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi, og ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar, og musharaxiinta jagada madaxweyne ee federaalka soomaaliya, og maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya. Ujeedo: cabasho iyo dadafayn gudiyada doorashooyinka 2020 ilaa 2021 mudane madaxweyne iyo mudanayaal, anagoo ah musharaxiinta xildhibaanada Somaliland ee labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Somaliland, markii aanu aragnay magacaabista gudida doorashooyinka heer federaal ee 2020 ilaa 2021 oo xubnaha kaga jira gobolada waqooyi dhammaantood yihiin shaqaale dowladeed iyo dad dibadda ay ka keensadeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya sida Axmed Maxamed Ducaale, la taliyaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo xiriirka hay'adda ahna qoyska mahdi maxamed guuleed. 2 Caydaruus Saalax Yuusuf, xogayaha safaaradda Hindiya, kaas oo ka mid ahaa gudidii doorashadii 2016 isagoo waqtigaasi ku kacay arrimo eex ah iyo qof jeclaysi kuna mutaystay in dibadda looga saaro goobihii doorashadu ka socotay. waxaana isku qoys yihiin wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya xildhibaan Saalax. markii aanu aragnay magacaabista gudida xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya 2020 ilaa 2021 Xuseen Laki Maxamed oo loo magacaabay isaga oo dalka ka maqan, waxaana soo xulay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar. 2 Cabdirasaaq Cali Kaahin, shaqaale dowladeed oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta, waxaa xulasho iyo qaraabo kiil ku keenay gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe oo qaraabo dhow yihiin, taas oo daaha ka rogaysa gudidii khilaafaadka doorashooyinka iyo hay'addii garsoorka u sarreysay ee racfaanka looga qaadan lahaa in ay qayb ka wada yihiin qorshahan. markii aanu aragnay liiska xulashada gudida doorashooyinka heer maamul goboleed oo ka kooban saraakiil ciidan, shaqaale dowladeed iyo qaraabada ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed, ayaa waxa uu dhigan yahay sida tan: Khadar Xariir, shaqaale dowladeed oo ka tirsan Villa Soomaaliya ahna qaraabada ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed, sidoo kale ah xididka oo loo qorsheeyay inuu noqdo gudoomiyaha gudida gobolada waqooyi. 2 Samson Maxamed Faarax, waa sarkaalad ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee NISA, waxaana si wada jir ah u soo xulay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka dastuurka Soomaaliya xildhibaan Saalax. 3 Xildhibaan Ayuub ayaa qorshahan qayb weyn ka ahaa oo rabitaankiisa lagu soo xulay xubnaha beeshiisa dhammaantood isaga oo aan wax tashi ah la samaynin siyaasiyiinta deegaanka ah ee beesha Samaroon. mudane madaxweyne iyo mudanayaal, haddaanu nahay musharaxiinta xildhibaanada gobolada waqooyi ee ku bahoobay ururkan midnimo, in gudiyada waafaqsan sharciga iyo habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee tashiga qaran 2020 ilaa 2021 farqadiisa 1, 2, 3, 4 iyo xeerka sharciga doorashooyinka qodobka 8 farqadiisa 2 oo odhanaysa in dadka ku jira xisbiyada, xubnaha ciidanka kala duwan, shaqaalaha dowladda iyo cid kasta oo siyaasad ku lug leh aan loo magacaabi karin in ay ka howlgalaan xafiiska doorashooyinka. sidaas darteed waxaanu halkan ka cadaynaynaa inaan kalsooni ku qabin qadiyadda doorashooyinka dhammaantood, waxaanan u aragnaa sharci darro. waxaanu mar labaad ugu baaqaynaa musharaxiinta madaxweynayaasha iyo siyaasiyiinta gobolka Banaadir inaanay aqbalin in Muqdisho lagu musuqmaasuqo kuraasta Somaliland ee loo asteeyay in Muqdisho lagu doorto, maadaama oo gobolku martigelinayo. Allah mahad leh. waxaana war-saxaafadeedkan ku saxeexnaa gudoomiyaha ururka midnimo